cararay qolkiiba ana walahi kabi hataa wala ana kulli tagay waan fiiriyay nalkii baan daaray nalkii dasana waan dar qolkii waan furay waan fiiriyay misaxaadkii gabadhii iyo dhig saas u soo qolqolaysa biyo kale oo qolqolay gidaha soo fiiriyay afta dhinaca gidaakana far waaweyn oo dhigeeda ayuu ku qoray oo ku jeclahay kaama maarmo oo ku xisi doona I love you baby sorry ayuu gidaha soo uga buuxiyay marka ugu horeysa waan ka xumahay waxa dhacay inay ku saameysay dhibaatada dhacday arinta aniga iyo Soomaalida kale ee dalkan ku nool si isku mid ay noo saameysay ehelka gabadhan waan u tacsiyadeynaa sidaan wareysiga ka hor ku ballan qaaday ma sheegi doono magacaaga waxaad marka hore iga warantaa sida ay wax u dhaceen ee aad u aragtay sheekadu waxa dhacday aniga horta gabadha isku meel baan degnaa daris baan ahayn gabadha aniga waxaan deganaa balog ugu horeeyaan degnaa iyaduna balog ugu dambeeya degantaa ilaa una xariistay gabadhaas jimcihii aniga kubad ku maqan ayaa wax soo jimciga soo laabtay kubada jimci tagay waan soo laabtay waxaan imaaday koodi habeenimo guriga imaaday marka waxaan arkay ninkaas oo banaanka istaagsan oo saqaansan oo cirka maraya bacdi wiilkii wuxuu ugu dhahay saacadii wuxuu ugu dhahay guriga inaan tagaan rabaa macnaha banaanka maanta dhan adigu guriga ma joogin markaasaan ku dhahay sax macaan inta badan islama socono kuma arkin waxa dhacay markaas wuxuu dhahay waxa ma ahan maanta waxbaan waan cabay sana suubiyay waan saxansana muxuu suubiyay markaas dagaalka intuu dhicin ka hor weeyaan jimci weeyaan sabtidii wax dil rabaa marka jimci wuxuu ugu dhahay gurigan tagaya banaanka fadhiyo waa gartay guriga uu tagay gabadha caadi ma isku naqaanaa oo isla sheekaysan jirnay caadi adiga dir ahaan isku sheekaysan jirnay caadi dirs banaan wiilkii uu baxay guriga uu tagay adiga 20 daqiiqo isagoo maqneen ayaa gabadhii ordaysa ay timaado guriga soo qarqaracdo waa galabtii jimcaha galabtii jimcaha hadinimad kadib maxaa dhacay kabacdi soo qarqaracday albaabkan ka furay mise gabadhii way oynaysaa maxay kugu tiri marka waxaan ku dhahay maxaa dhacay markaas ay dhahday kaalay ninkan ma garanayo halkan taagan yahay wuxuu rabaa inuu dhaho dadka si basabon ku fuulaya basabon waxa ku sameynaya haddii aad siin weydid amba wiilka amba cunugaagan ka taraya amba aad siin bacdi waan fiiriyay waan tagay ninkii meesha saaran waan la soo hadlay waan soo kaxeeyay oo soo raacay gurigayga keenay biyasiye waan dajiyay cuntan u kariyay wallahi waan dajiyay ani lagu wiil kala xataa meeshii la degnay ma Soomaali baa labada wiil waxa lagu wiil Afghanistan weeyaan bacdi waan dajiyay waan la hadlay kabacdi ninkii waan ka kari waayay wuxuu taagay inuu gurigayga tagay weeyaan naagteeda anaa qaba waa isqaba xaaskiisu baa waxaan rabay in ay soo biso weeyaan guriga ku laabtay weeyaan ayuu tagnaa أنا شيء راح أقول له ساعة فدالكاس أنا أتجايا لكلا صاحب ضايع وحسب اسمه فعنا أنا بالواحد أيضا نبكي وصوفي رنا يا برسول هي قبل ما أتجي الباقي يقفرتي وحيود هذي وعلي هذا ما تدري بتلسه ما تعرف أنا معلوم والبند بتلسه قبل هذا سواء معلوم والبند جورجي في بينا ده ونشتاق عبو أم بجورج وعبو أيوة كذا هي قفنا ومش شايفين برسنا ومتعاون دمنكم متعاون هي مركا adiga maxaad sameysay markaas anigana wala haday wandigadan wandijiyay oo sheekay wandijiyay oo sheegay wax ku dhahay ninkani nin fiyo maahan macna uu shaarin oo sameynaa war ma aha hay marka uu shaariyay wax sameynaa war ma aha bal markuu fiyo birtole arunimadeeda ana ku keenayo birtole wala hadlaysa hay waa subax aad balamaysan waa subax sabtiga ha hay wiilkii waan kaxeeyay gurigaan geeyay uu seexday hal sabti subaxnimadeeda soo kacna markaa hay biyay adan cuntadii waan u kariyay uu cunay isagoo markaan aan arkay inuu caadi yahay uu hadda uu ninka fiyo yahay ayaa kaxeeyay
ayaan kaxay waxaan ku dhahay bal orod u tago halkaa wata fadhida jaranjarta iyaduna fadhida wata jaranjarta fadhida la hadalo bal raali geliyo madax ka dhunko bal qaladkaaga dul saaro nin ragaatee waxaad ii sheegtaa labadooda guriga ma wada deganaayeen labadooda way wada degnaayeen laakiin guriga iyadaa lahayd isagu dhinac kalu degnaa oo isla qaybaha dhismaha uu ka kooban yahay ah may qayb u jirtaa adi 4 kilomitir 4 kilomitir meel u jirto deganaa haye marka iyadana sharciga u raadinaysay oo macnaha way u dacwanaysay in ninkeeda ay iskuursadaan ay dhinacan doodka u qoraan inay iskuursadaan ay meel wala degi karaan isaga sharci mu haysan bila sharci waa loo diiday fara laga helay haye markaasuu baxay uu tagay iyagoo caadi oo isla sheekeysanaya meel fadhiyaan sheeda ka fiiriyay ay fadhiyaan marka arkayna isla sheekeysanaya waan ka tagay aniga waa gartay waan ka tagay guriga iska tagay cabarajo waan ka baxay magaalada iska tagay guri kale oo saaxiibadayda iska tagay halkaasaan kaga maqnaa fiidkii 22 soo laabtay guriga waan baxay waan seexday 6 subaxnimo bal wax albaabka hore ka furay ma aqaani albaabka isoo qaraacay ma arag guriga aad deganta adiga gabadha gurigeeda ku deganaa guriga aan deganahay waxa weeye kuwan ugu horeeyay kuwa ugu dambeeyay degnaa waan gartay soo qaraacay waan furay albaabka furay baqasunin waxa weeyaan xasan ona sidii shalay ka dara haye marka muxuu kugu yiri markaasuu ii yimaado wuxuu dhahay adiga Soomaaliya adiga wiilka Soomaaliya adiga Soomaaliya banaanka u soo baxay banaanka u soo baxay gacantii qabtay markaasuu dhahay ina keen waa raacay halkii deganaayeen jikadu geey marka qolkii waxa ay muuqdeen jikadu geey haye kadib waxa arkay ninkii 3 dalana u saaray 4 dalo oo diinta iskaga dhigay oo lugaha iyo qamcaha oo isku gubay oo isku qorqoray magaca gabadha ilaa naxariista yani magaceeda aad isku qoray jirkiisa ku qoray isku qoray ma dhaawac qoyan buu ahaa oo dhiig leh mise wax hore ahayd dhaawac cusub buu ahaa marka uu isku qoray dadka u shina xataa oo saarneed mindidii iyo oo saarneed oo dadku u saarna 9 buu u tagay halka wax lagu karsado weeyaan 9 bal lambar uu ahaa mindi waa u saarneed saas isku qorqoray marka okay xagee marka uga qornaayeen maxaas ku qornaa labada lugood iyo halka camba ugu qornay marka uu waribo sida adiga tootu oo kale isku buuxay haye بعد أحد أنيوم حكى سيا ورسول الله مجعل ما رتها وانشألا وانسكو قري كمان مارمو يضي ما شألا مقصاها أنا واحد المذي مركا إنا هردان تذكر ماشي إن الدسكي كلا لدقنا ماشي توغانا هردان بالموضوع هي واحد قد بالخالة بناك الصبح بناك بشيك سنة بناك عبار وان دتشيلي كرسي وان فريسي والله أني لو دي ويلو كلا والله اللي ني بعد مركو أفرت دقيقة سورت أيوه يقول هاي كودي وانتي إلى أون حرفته الله يرحمك وانتي لكوبان كسي هي aniga markaas ma aaminin macnaha wax suurtagalay lama noqon haye kadib maxaa dhacay baad waxa aamin waayniyo waska kaftameysa fariisto markaas inuu ugu dhaay wallahi waan uban kasi ilaahu naxariisto anaga markaas in soo yar aamin rabo ayuu rabin inuu la dagaalamo marka muxuu kula dagaalamayaa wallahi la dagaalamay hataa ma garanayo uu qabtay saaxiib ugu dhahay أنت يقطعون ظهر بينه يلقى أو رسن يفيد عليه بحد عمل يقول لقى كمان نسيتي لها أوسيبتي وكنت فرستة واحد واحد شيء سحمية مقصود على حاول والله وين تلي لابد يبقى خد على عاوي ربع قمعي قطع وان قبلنا واحد دمينا خد بولس وعي واحد ويل بنخد راح صفر بلينا رنتي تاج سدا ويل وقع عشلهاي أيوه أنت ما قصدك وقع أيوه ربع إنه نقف كذا هي بعد ويلكم كده هاي حابب تيجي نقول كي بالكالي نلاقه بال أنت ستة بنتي بال نلاقه هاي نلاقه بتي بوليس شبه نوي ما تمركع كدي محي سماه بوليسكا بوليس ما تسوي مادين أنت البوليس سيكون مشكور سناي سوي مادين أنا عرّي أنا قلت كاسل صوّر بين البنت تاني كنت تا هاي وأنا عرّي قلت كي أنا والله كبي حتى ولا أنا كل تجي وفيري نلكي بندار نلكي تنسنا وندار قلبي وفيري مساحة كجودي يديك ساس وصاق الكل يصير بيوه كله. marka ma dhulkay taala mise sariirta dhulkay taalay dhulkay jiftay
haye wax dhaawac oo arki karto oo indhahaaga qaban kareen kuma muuqan marka laga reebo dhiigga oo qolqolaya gidaarka soo fiiriyay afarta dhinaco gidaarkana far waaweyn oo dhiiggeeda ayuu wuxuu ku qoray oon ku jeclahay kaama maarmo oon ku xisi doonaa I love you baby sorry ayuu gidaarka saa uga buuxiyey haye indhaha marka saas kuma si mashquulisa marka u fiiriya waan ku daadegay booliskii oo uu wacay booliskii ambalaas u wacay isla markiiba soo koreen haye fiiriyeen ambalaasaasa degdeg u timaada way fiiriyeen waxa dhaheen nafti way ka baxday haye adiga dareenkaaga markaas u noqday aniga markaas niyo shoog baan qaaday waan shoogsanaa ilaa hadda saaxa macaan waan shoogsanahay hadda waxa ii balansan dhakhtarkan adi caafimaadka la fiirinaya dadka inay caafimaad qabaan kale haye booliska ma ku wareysan adiga booliska hadda waan ka imaaday saakii i wareysteen wixii xaqa u sheegay sida hadda kugu sheegay oon u sheegay iyo wixii dacwan u sheegay way wareysteen adi 4 saacadood bay haysteen 4 saacadood bay ku wareysanayeen 4 saacadood bay wareysanayeen waxaan galay 9kii waxaan kasoo baxay hadda 12kii waan kasoo baxay haye 3 saac hadallo uu kugu yiri oo aad xasuusan tahay ma jiraan marka laga soo tago in gabadheedu waa dilo uu ku yiri aan hayay ayuu wuxuu igu dhahay haddad isii deen weydid oo inaan baxsaan rabad isii deen weydid waxa ku dilaya saaxiibaday amtida ku dilaysa adigana ma badbaadis anigana waxa kuma mashquulin waan qabsan ani waxa maskaxda ma sii galin ani waxa ii cadad inaan arko booliska inay qabtaan aan qolka soo fiirin runtii tayna beentita haddana anigana saamaca bal wax sameey ma garanayo walaa waan ka xumahay waa arrin dabcan aad u adag marka qof xaalad noocaas uu goobjoog u ahaa ama uu arkay ehelkiina dhibaatada iyagana waxaan uga tacsiyeynayaa dhibka gaaray gabadha adigana waxaan kuu rajeynayaa insha allah inuu caafimaad ku siiyo boogahaagana uu kuu dhayo insha allah saaxib ilaa uu naxariisto wallahi saaxib ma ilaa hadda wallahi mustaxan soo jeedas insha allah hadda wallahi mustaxan madaxaas ayaa xanuunaya dibigayga waxa si baan ahay wallahi insha allah waxaan kuu rajeynayaa caafimaad naso caafimaadkaaga shaqeey hurdo fiican insha allah hurd khayr badan baan kuu rajeynayaa insha allah insha allah saaxib waa mahadsantahay